xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo codeeyay qaar kamid ah qodobada xeer hoosaadka ee baarlamaanka Soomaaliya sida faafinta warkaan magaalada Muqdisho inooga soo diray Cabdulqaadir Cali Xuseen Koronto halka Somali Channel uga soo warama kadib kulan ay yeesheen xildhibaanada golaha baarlamaanka Soomaaliya oo ay soo xaadireen 164 mudane isla markaana uu shir gudoominayay Professor Maxamed Sheikh Cusmaan Jawaari oo ah gudoomiyaha golaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay u codeeyeen qaar kamid ah qodobada xeer hoosaadka baarlamaanka oo ay wax ka bedel ku sameeyeen guddiga anshaxa iyo xeer hoosaadka baarlamaanka Professor Jawaari oo shir gudoominayay kulanka ayaa waxa uu goreen ka warbixiyay ajandaha kulanka qodobka 28aad ee xeer hoosaadka hadaad haysataan waxa weeyaan boqolkiiba 50 iyo oo hal lagu daray inay fadhido ayaa ay ku furmaya codeynta waxaana ku ansaxayaa codka kan hadda aan qaadayno boqolkiiba 50 oo hal lagu daray 139 cod ee hoosaadka sida idinku taalo weeyaan boqolkiiba 50 iyo hal dheeri ah ayuu ku gudbayaa ama lagu diidi karaa qodobkii la keeno ansaxna waxa waa in codeynta la qaadi karo inay ugu yaraan fadhido boqolkiiba 50 iyo hal lagu daray marka 164 baad ku fadhidaan ugu yaraha loo baahnaan waa 139 marka codeynta waa la geli karaa hadduu gudbaayo haddii aad dib u dhiganaysaan idinka ay jirtaa xildhibaanada baarlamaanka oo la hordhigay qaar kamid ah qodobada xeer hoosaadka ee wax ka bedelka lagu sameeyay iyo qodobo cusub oo lagu soo kordhiyay ayaa waxa ay ansixiyeen qaar kamid ah qodobadii wax ka bedelka lagu sameeyay halka qaar kamid ah qodobada ay diideen oo la isku raacay in sidii hore u qornaa loo daayo codeynta oo ay xildhibaanada qodob u meelbarinayeen xeer hoosaadka ayaa waxa natiijada ku dhawaaqay Professor Jawaari isagoo gabagabadii codsi u jeediyay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya waxa ka aamusay 9 waxa diiday 15 waxa ogolaatay 144 markuu ansaxay نظام عايز دقيقة وقايرها قادرة سي أو حلكسلمها بريتو أدي الله إدمو ساعات ما كردينيو طوانك شغلوها بالله marka ballan hayno ahaato inaan ku dhimaadno 9 ilaa 10 aan soo ururno 10 aan hawsha bilaaban waad mahadsantahay shirku xiriir Cabdulqaadir Cali Xuseen Koronto Somali Channel magaalada Muqdisho xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo codeeyay qaar kamid ah qodobada xeer hoosaadka ee baarlamaanka Soomaaliya sida faafinta warkaan magaalada Muqdisho inooga soo diray Cabdulqaadir Cali Xuseen Koronto halka Somali Channel uga soo warama kadib kulan ay yeesheen xildhibaanada golaha baarlamaanka Soomaaliya oo ay soo xaadireen 164 mudane isla markaana uu shir gudoominayay Professor Maxamed Sheikh Cusmaan Jawaari oo ah gudoomiyaha golaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay u codeeyeen qaar kamid ah qodobada xeer hoosaadka baarlamaanka oo ay wax ka bedel ku sameeyeen guddiga anshaxa iyo xeer hoosaadka baarlamaanka Professor Jawaari oo shir gudoominayay kulanka ayaa waxa uu goreen ka warbixiyay ajandaha kulanka qodobka 28aad ee xeer hoosaadka hadaad haysataan waxa weeyaan boqolkiiba 50 iyo oo hal lagu daray inay fadhido ayaa ay ku furmaya codeynta waxaana ku ansaxayaa codka kan hadda aan qaadayno boqolkiiba 50 oo hal lagu daray 139 cod ee hoosaadka sida idinku taalo